السلام عليكم أصحابتا كحران جانلكا حق بسل كبدان إذن موغطو أيا وحا كيماها دالكا كولومبيا كوايستي دانيرو لشيغي إناي كحذين والد كيدا أيضو آد وير صور كيدان هادا كو موغضو وأيضو جرتو صدن سنو balse intaan ugu dugan dhacdadan adoo mahadsan ugu soo biir subscribe na saaro channelka oo hadda like saaro muuqaalkan gambaralkana furo si ay ku soo gaaraan dhammaan muuqaalada halkan xog bisil aynu soo gelin doono mustaqbalka dhow iyo midka fogba waalidka caruurtooda aad ay ugu murgaan korintooda iyo badqabkoodaba sidaan inay uga fikiraan ama u ilaaliyaan caruurtooda waa wax dabiici ah oo ku abuuran noolaha dhammaan siba aadanaha dhibaatada ugu weyn ee halista badan ee waalid soo wajihi karta waa inay caruurtooda laga afduubo ama la waayo marqura qaar badan oo kamid ah caruurta la afduubto waa la soo badbaadiyaa nasiib daro qaarna waa la dilaa halka qaar kale halka jaan iyo cirib meel ay dhigeen lagu diimo sheekadana maanta waxay daaran tahay gabar yar oo la afduubtay iyo sida ay daanyaro cajaa'ibtooda lahaa ay u badbaadiyeen nolosheeda. Marina Chapman waxay ahayd gabar yar oo dhalatay 1950-meeyadii waxaana soo koriyeen waalidiinteeda laakiin nasiib darro intaynan u dabaaldegin dhalashadeedii shanaad ama aynan jirsan 5 sano ayaa maalin ayadoo gurigeeda hortiisa ku dheelaysa waxaa lagu soo agbaakintay gaari nin ayaana kasoo booday oo gabadhii inta sanka iyo afkaba mara ka saartay buudka gaarigiisa uuna qaatay Marina waxaa miyir ugu horeysay iyadoo kaymaha Colombia tunka uu nin ku sito nasiib wanaag nin kamid ahaa burcadii wadatay gabadha ayaa mar uun qaylo afka furtay kadib gabadhii yarayd inta ay dhulka ku tuureen ayay ku ordeen dhanka saaxiibkoodii qaylinayay Marina ayadoo wareersan oo daal badan ka muuqdo ayaa waxa isheeda qabatay geed god lagu dhex dhooman karo leh wayna gashay oo dhex seexatay subaxii dambe markay indhaha kala qaaday ayadoo ilayska cadceeda indhaha ka hayaan oo ayna hareereeyeen daanyaro la fajacsan gabadha yarta ah ee kaynta joogta kaligeed xoogaa markay daanyaradii yara dhibeen oo tinta ka yara jijiideen indhaha u saareen oo ay xoogaa yara dhibeen ayay ugu dambeyn la qabsadeen oo ay isaga tageen gabadhii yarayd halkii ay isaga sugnayd oo ay doorbidaysay burcadii soo afduubatay bal inay ku soo laabtaan oo kaynta ka kaxeeyaan nasiib darro sidaas way noqon weysay oo burcadii way soo laaban waayeen Marina si xoogan bay u qeyl dhaamisay ilaa cunaha uu xanuuno ayadoo rajaynaysay bal inuu qof uu naqlo laakiin qofna maysan helin taasina Marina bilow ay u noqotay ayadoo 5 jir kaliya inay kaynta oo aad ogtahay khatarta ay kala kulmi karto Marina xayawaanada duurjoogta ah ku noolaato Marina nolosha duurka ayaa u bilaabatay waxaana qabatay gaajo waxay iska daba gashay daanyaradii oo iskala quudato iskala qaraabatay Marina waxay iska gurato miraha ay daanyarada cunaanba waxay heshay mir dhegdheg badan oo aad u macaan taasoo ay aad u cuntay balse xoogaa kadib gabadhii yarayd caloosha ayaa looga dhagay ileen lamaynan qabsan cunida miraha Marina markii uu xanuunkii ku sii batay ayaa alle waxa uu u bixiyay daanyeer da ahaa kaasoo markii hore ay islaheed uu ku cuni rabaa laakiin ugu dambeyn ay u bixisay awoowe ayaa gacanta inta uu ka qabtay geehar biyo ah oo aad u waraabiyay Marina zaid ay u tagtay mirihiina way ka soo daateen oo way bogsatay maalintaas wixii ka dambeysay ilaa 5 sano kadib ayay la noolayd daanyaradaas Marina waxay baratay oo la qabsatay nolosha duurka ayadoo wax badan ka baratay daanyarka waxay baratay geeda fuulka isnadiifinta iyo miraha la cunay kuwaan la cunin si tartiib ahna daanyaradii way aqbaleen oo kooxdoodii ay ka mid noqotay xitaa waxay baratay sida iskula xiriiraan ama u wada hadlaan daanyarada 30 sano kadib Marina ayaa buugeedii la magac baxay gabadhii ay soo koriyeen daanyarada ku faafisay sheekadeeda laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay sidee bay ku soo badbaaday Marina ayadoo jirto 10 sano ayaa waxay si kalis ah ku aragtay ugaarsadayaal
kaynta ku jira. aad ayaan ugu hamuun qabtay aragga bini aadam maadaama 5 sano aynan qof socdaba arag. Marina waxaa ka lumay hadalkii iyo luqadii ay ku hadli jirtay. duurjoog caadi ah ayay noqotay. ugaarsadeyaashii ayaa ka soo saaray kayntii oo keenay magaalada, waxayna ka iibiyeen meel lagu iibin jiray dumarka jirkooda. Marina waxaa lagu qasbi jiray inay ka shaqayso nadaafadda guryaha dumarka lagu gado. intaas ayaana lagu sii dari jiray jirdil joogto ah. laakiin ugu dambeyn way ka baxsatay meeshaas ayadoo wadooyinka kula nooleed caruur kale oo darbijiifi ahaayeen. caruurtan ayaa bartay luqadda, markay kortana waxay heshay qoys aad iyo aad u naxariis badnaa oo ay la noolaatay. waxaana la geeyay dalka Ingiriiska, khaasatan Bradford, halkaasoo ay kula kulantay nin saynisyahan ahaa oo la oran jiray John, oo ugu dambeyntiina ay isguursadeen. Marina tani waxay u ahayd nolol cusub. waxaa xusid mudan in Marina weli aanan helin dadkeedii, laakiin waxay mahad iyo bogaadin u haysay daanyeeradii soo korsheen qoyskii darbijiifnimada ka bixiyay iyo saygeedii John ahaa ee la unkay qoyskeedii saddexaad. sheekadan ama qisadan waxaan ka baran karnaa in xayawaanada qaarkood ay naxariis badan yihiin. sidoo kale waxaan ka baran karnaa in si kastoo qofku dhibaato u galo uu ka bixi doono haddii uu dunidan quud ku leeyahay. halkaas ayaan ku joojinaynaa sheekadeenni maanta. haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saaro, hadda muuqaalkana like saar, lana wadaag asxaabtaada kale.